wuxuu taxanayna ku bilaabmaya shaqaale ka shaqeeya matxafka Louvre oo lagu magacaabo Asam. Waa xilli habeenimo ah, Asam oo ah shaqaale nadaafadeed ka shaqeeya matxafka Louvre ayaa indhaha ku dhufanaya silsilad dahab ah oo qadiimi ah. Silsiladaas oo leh taariikh muhiim ah oo loo yaqaano silsiladii boqorada. Waxaa la sheegay in silsiladan la iibin doono toddobaadka soo socdo oo lagu qiimeeyay in ka badan 20 milyan oo euro. Asam waxa uu eegayaa kamerada ammaanka, kadibna waxa uu qaadanaya qalabkiisa shaqada, kadibna waxa uu baxaya isagoo aan waxba oran. Subaxii xigtay Asam waxa uu la kulmaya xaaskiis hore ee Kalira oo ay kala tageen sababtoo ah inuu nolol qurux badan siin waayay iyada. Wuxuu sheegay inuu shaqo helay balse Kalira ayaa isaga ku maadsanayso iyadoo leh waxaan rajaynayaa markaan inaad run ii sheegayso. Asam waxa uu codsanaya inay ogolaato inuu arko wiilkiisa Raul dhamaadka toddobaadkan. Kalira ayaa u sheegaysa in dhibaatada aysan ahayn iyada balse Raul isaga diidi karo la kulankaaga sababtoo ah Asam oo muddo dheer aan wiilkiisa booqan. Asam ayaa qiranaya inuusan ahayn aabo wanaagsan waxayna Kalira ay ogolaanaysaa inuu la kulmo wiilkiisa. Waxa uu siinayaa lacagta nafaqada Raul. Kadib Asam waxa uu la kulmayaa koox burcad ah oo ay ku leeyihiin lacag deema ah isagoo uu sheegay inuu lacagta uu siiyay xaaskiisa. Kooxda ayaa xanaaqaysa waxayna uga hanjabaadayaan in haddii uu lacagta soo celin waayo ay isaga ka tuuri doonaan banakoonka sidoo kale inay lacagta ka qaadan doonaan xaaskiisa. Asam waxa uu weydiisanaya inay dhageystaan isagoo ballan qaadaya inuu qorshe haayo oo lacag badan lagu heli karo kaliya hal howlgal oo qura. Vincent madaxda kooxda ayaa ogolaanaya inay dhageystaan. Asam waxa uu sharxayaa qorshe uu isaga diyaariyay sidoo loo xadi lahaa silsilada qaaliga ah ee lagu iibin doono matxafka Louvre. Asam waxa uu sheegayaa Vincent iyo kooxdiisa in ay galaan matxafka iyagoo iska dhigayo shaqaale nadaafadeed wuxuuna u ballan qaaday inuu siiyo kaararka ay gudaha ku gali doonaan. Waxay sharxayaan in ammaanku uu hubiyo marka laga reebo bacaha qashinka ee shaqaale nadaafada ay ku baxaan iyo in qolka kormeerka uu hal qof ka shaqeeyo. Wuxuu u sheegaa Vincent in marka ay kormeeraan kaamirooyinka ay haystaan 7 daqiiqo oo kaliya si ay u sameeyaan xatooyada ka hor inta aan booliiska soo gaarin. Maalintii xaraashka Asam wuxuu isku soo ekeysiyay sidii maalqabeen ka mid ah dadkii xaraashka joogay. Intii xaraashka socday Vincent iyo kooxdiisa waxay galeen matxafka iyagoo ku labisan sidii shaqaale nadaafadeed waxayna bilaabeen in ay fuliyaan qorshahooda iyagoo qolada amniga suuxinayo. Vincent ayaa u labisan sidii qof amniga ka tirsan isaga iyo saaxiibadiisa waxay u dhaqaaqeen dhanka qolka silsilada lagu keydiyo. Isla waqtigaas Rudy wuxuu galay qolka kaamirada isagoo la dagaalamay shakhsigii amniga kormeerayay kaamirooyinkiina damiyay. Rudy wuxuu dibadda uga baxay matxafka oo uu sugayay baabuurka ay ku baxsan lahaayeen. Inta kale ee kooxda waxay galeen qolka silsilada iyagoo la socda Asam iyo maamulaha xaraashka. Maamulaha ayaa u sheegay in uu heli karo silsilada marka lacagta ay soo gaarto akoonka bangiga. Asam wuxuu u dalbaday in marka hore iska hubiyo silsilada markii ay furteen qolka silsilada lagu keediyo. Asam waxa uu xasuusanaya marka uu yaraa uu hooyadii dhimatay isagoo la noolaa aabihii oo darwal u ahaa ninka lahaa silsilada ninkaasoo lagu magacaabo Pellegrini. Pellegrini ayaa ku eedeeyay aabaha Asam in uu xaday silsilada taas oo keentay in aabihiisa la xiro oo uu isdilo maalintii xigtay sababtoo ah eedeynta beenta ah darteed. Markii Asam uu kasoo laabto xasuustii uu ku jiray Asam waxa uu gacanta ku dhigay silsilada balse Vincent iyo kooxdiisa ayaa qiyaameeyay iyagoo dilay Asam ka hor intaanay baxsan. Asam waxa uu ogaaday in ay qiyaameeyeen oo ay isaga tageen waxayna ka baxsadeen matxafka iyagoo raacaya baabuurkii uu waday Rudy. Laakiin booliiska ayaa dabagal ku sameeyay oo qabtay kooxda. Booliiska ayaa baaritaan ku sameeyay Asam laakiin maamulaha xaraashka ayaa u sheegay in baarayaasha in Asam yahay dhibane sababtoo ah waa kan iibsaday silsilada. Isla mar ahaantan booliiska waxay ogaadeen in silsilada laga helay Vincent iyo ragiisa ay been abuur ahayd. Asam waxa uu ka baxayaa matxafka isagoo aan la waxyeelayn. Waxaan dib ugu noqonaynaa 2 toddobaad ka hor markaasuu Asam uu maqlay war sheega in silsilad lagu soo bandhigi doono matxafka Louvre oo lagu iibinayo xaraash caalami ah. Asam ayaa go'aansaday inuu shaqo ka raadsado matxafka si uu u qorsheeyo inuu xado silsilada una aargudo aabihiisa. Wuxuu Vincent ka amaahday lacag isagoo u ballan qaaday inuu ku soo celin doono lacagta iyo dulsaarkeeda. Asam waxa uu isticmaalay magacyo been abuur ah si loogu aqoonsan magaciisa dhabta ah iyo aqoonsigiisa. Intaa waxaa dheer wuxuu internetka ku matalay maalqabeen si maamulka xaraashka ay u xaqiijiyaan inuu yahay ganacsade leh hanti badan. Wuxuu Asam caawinaad ka helay saaxiibkiisa Benjamin oo uu sameeyay nugul been oo silsilad ah. Intii lagu guda jiray xatooyada Asam waxa uu si xeelad leh u bedelay silsilada isagoo silsilada beenta ah dhulka ku riday halka uu silsilada dhabta ahaydna ku riday qashinka. Kadibna dharkii uu sitay iyo iska soo bedelay oo dib ugu laabtay matxafka sidii shaqaale nadaafadeed oo kale isagoo si fudud silsilada ugu saaray qashinka oo uu kadibna matxafka kaga baxay. Asam waxa uu tagay dukaanka dahabka ee saaxiibkiisa Benjamin halkaas uu ka ogaaday in silsilad aan horey loo xadin. Asam waxa uu fahmay in Pellegrini uu been abuuray sheekada ah in silsilada la xaday si ay u helaan warbaahin badan oo ay ku iibin karaan qiimo sare. Asam waa uu niyad jabay isagoo muddo dheer u haystay in aabihiis uu xaday silsilada laakiin hadda waxa uu ogaaday in aabihiis uu ahaa mid aan waxba galabsan. Asam waxa uu weydiiyay Benjamin inuu burburiyo dahabka silsilada. Markii Asam xasuusta da'da 16 sano uu ahaa kadib dhimashadii aabihiisa sarkaal
shaqaale ayaa u sheegay in alaabtiisa soo aruursada si loo geeyo xarunta daryeelka bulshada. Asam waxa uu isku dayay inuu ka baxsado, laakiin sarkaalka Dominic ayaa qabtay. Haddana waxaan arkaynaa Juliet oo kasoo baxday hotelkii ay degan tahay hooyadeed. Waxaa soo gaadhay warqad loogu sheegay inay ballan la leedahay qofkii xaday silsilada oo ku sugan ciwaan gaar ah. Isla markaan lagu wargeliyay inay booliiska u sheegin, laakiin Juliet waxay la heshiisay booliiska waxayna xirneed kaamirad iyo mikrofon qarsoon oo ku dhex jira dharka ay sidato. Asam oo labisan sidii shaqaale delivery ah ayaa la kulmay Juliet. Waxa uuna si degdeg ah uga shakiyay in ay booliis la socdaan kulankoodii, isagoo og in dharkeeda uu kaamiro ku xiran yahay. Asam waxa uu weydiiyay Juliet sababta uu aabihiis loogu eedeeyay xatooyada. Waxay qiratay in arrintan aysan waxba ka ogeyn iyada. Waxay ku adkaysatay in aabaheed aanu waxba galabsan, laakiin Asam aabihiis inuu isaga saxiixay qirsho xatooyo ah. Markii booliiska soo dhawaadeen, Asam waxa uu fuulay baaskiil oo uu ka baxsaday booliiska. Booliisku way isku dayeen inay qabtaan, laakiin wuxuu isticmaalay khibradiisa. Wuxuu iska bedelay dharkii uu sitay. Asam waxa uu dib ugu laabtay gurigiisa isagoo akhriyay warqadii ugu dambeysay uu aabihiisa qoray, taasi oo ahayd qirasho dambi ah. Laakiin wuxuu ogaaday in warqadda ay leedahay qaladaad xagga qoritaanka ah. Asam oo og in aabihiis aanu weligiis qalad sameynin ayaa fahmay in qaladaadkan ay ka tarjumayaan fariin qarsoon oo ku saabsan magac qof kale oo la yiraahdo Kumey oo ahaa maxbuus la xirna aabihiis. Asam waxa uu tagay xabsiga si uu u booqdo Kumey, laakiin wuxuu ogaaday inuu xanuunsan yahay oo uusan heli karin booqdayaal. Kadib Asam waxa uu qorsheeyay inuu iska dhigo maxbuus si uu u galo xabsiga. Waxa uu la heshiiyey maxbuus lagu magacaabo Tororey si uu isaga u bedelo xabsigana u galo, isagoo ugu dambeyntii ku guuleystay inuu bedelo xabsigiina galo. Xabsiga gudihiisa Asam waxa uu laaluush siiyey maxaabiis, isagoo siiyey 2 baakad sigaar si uu u ogaado halka uu Kumey ku sugan yahay. Kadib waxa uu isku dayay inuu aado isbitaalka xabsiga isagoo iska dhigaya mid xanuunsan. Asam waxa uu sheegay dhakhtarka inuu xanuunsan yahay, laakiin dhakhtarka ayaa ogaaday inuu been sheegayo oo waxa uu sheegay inuu sabab ka weyn la imaado si uu u galo isbitaalka xabsiga. Asam waxa uu go'aansaday inuu ka careysiyo 2 maxbuus oo halis ah oo mid ka mid ah Tororey kaga dhuftay caloosha, taasoo keentay in loo diro isbitaalka xabsiga. Asam marka la dabeeyay dhakhtarka waxa uu sheegay in uu habeenkaas halka uu seexdo si loo daryeelo xaaladiisa. Kadib Asam wuxuu si degdeg ah ula hadlay Kumey isagoo isku dayay inuu ka ogaado sirta aabihiis ugu tagay. Wuxuuna ka ogaaday inuu mar kaliya arkay aabihii oo uu siiyey buugaas oo ku qornaa sirta silsilada. Buugana uu ku jiro qolka xabsiga uu ka degnaa Kumey. Wixii xigtay Asam waxa uu baadhay qolka Kumey wuxuuna ka helay buugii aabihiisa uu qoray. Kadib si dhaqso ayuu jeebka ugu qarsaday intaan booliiska arkin. Intuu buuga akhrinayay Asam waxa uu ogaaday in aabihiis uu calaamadeeyay erayo gaar ah, markaasuu ururiyay. Kadibna wuxuu dib ugu noqday isbitaalka xabsiga si uu ugu mahadceliyo Kumey caawimaadiisa. Kumey ayaa ka codsaday Asam inuu u sameeyo wax uu xaaskiisa ku farxad geliyo, wuxuuna u ballan qaaday Asam inuu midaas u sameyn doono. Asam waxa uu mahadceliyay dhakhtarkii xabsiga, kadibna waxa uu ku laabtay qolkii xabsiga. Isla waqtigaas Juliet waxay aabaheed weydiisay haddii aabba Asam uu dhab ahaantii xaday silsilada. Aabaheed ayaa aad u xanaaqay, wuxuuna u sheegay in silsilada la xaday iyo in dhaqaalaha hay'adda uu khatar ku jiro, iyadoona ay hayso sheeko hore oo aan qiimo lahayn. Si kastaba ha ahaatee wuxuu isku dayay inuu isdejiyo, wuxuuna ka cudur daartay inuu xanaaqsan yahay, isagoo u sheegay inuu u baahan yahay taageerideeda. Dhanka kale Yusuf oo baara booliis ayaa isku dayay inuu isku keeno xariijin tusayo qofka xaday silsilada madxafka. Wuxuuna ogaaday in dambiilaha uu raacay wadadii tuugii taariikhda ah ee Arsene Lupin, wuxuuna fikradiisa la wadaagay sarkaal kale. Wuxuu rabi lahaa inuu aragtidiisa ku soo bandhigo baraha ugu weyn ee Luger, balse sarkaalad kale ayaa kula talisay in uusan la wadaagin madaxdiisa sababtoo ah waxay ka baqaysay in loo qaato inay kaftamayaan ama u tixgeliyaan mid nacas ah. Dib ugu laabashadii xabsiga Asam waxa uu isku dayay inuu isdilo si loo geeyo isbitaal guud, laakiin Asam waxa uu ku soo toosay gaariga gurmad. Waxa uuna ogaanayaa in markii Asam uu ka soo baxay isbitaalka xabsiga uu xaday daawooyin gaar ah isaga oo ka mahadcelinayay. Si uu bilaabo in uu miir beelo, wuxuu si xeelad leh isugu xiray shabaha kubadda. Kadib markii uu qaboobo oo uu muuqdo qof sida inuu isdilay camal. Markii uu ka soo baxay gaariga gurmadka, Asam si xeeladeysan ayuu u dhuntay waa uuna baxsaday. Haddaad ka heshay qisada filimkan, rayga qeyd faalada nagula wadaag, part 2 ayaan kasoo samayn doonaa.